علماء الدين كدقن حريها قحوتيga ee Dadaab ayaa ku baaqay in la yareeyo qarashaadka faraha badan ee ku baxaya aroosyada lagu dhigo xeryaha qaxootiga ee Dadaab. Faafahinta warkaasi waxa inoo soo diray wariyahayaga Axmed Cabdullaahi Jaamac. kulankan oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada qaxoontiga ah ee xeradan Xagardheer iyo dhanka kale ismo iyo waxgarad ka socday dadka deegaanka Faafi ayaa ujeedadiisu ahayd in lagu shaaciyo go'aan ay dhawaan soo saareen dalada culimada diinka xeradan Xagardheer isla markaana ay talo ku lahaayeen gudoomiyaha bulshada deegaanka qaadiga maxkamadda islaamiga ah ee xeradan Xagardheer iyo guud ahaan waxgaradka bulshada qaxoontiga ah iyo tan deegaanka. go'aankan ayaa xadidayay kharashaadka ku baxa aroosyada xeryahan Dadaab kaasi oo noqday mid xad dhaaf ah isla markaana ay tahli waayaan dadka ku nool xeryahan Dadaab iyo deegaanada hoostaga. bayaankan oo ka koobnaa 9 qodob waxaa warbaahinta u akhriyay gudoomiyaha dalada culimada diinka xeradan Xagardheer Cabdullaahi Sheekh Cilmi Macalin Cali. marka arinta la wada qaatay waxay ahayd dib yar oo dhacay oo xagga gabdhaha ragga markuu guursanaya ah dadkii oo qaxooti ah oo dibkii asaga ahaan u gagsan la arrimahaas marka hoos u galo waxyaalo badan ayaa la isla qaatay oo la faafiyay oo warqado laga teeb qaraacay ilaa laga geeyo qaadiga oo ka soo saxiixa hoos. arrimaha ayaga waxa weeye xagga guurka markaan bilaabo koow waa sooriyada wax loo yaqaan bisha waxaa laga dhigay sooriyada 10,000 ugu badnaan oo shilinka Kenya ilaa 5,000. lambarka labaad waa meherka gabdhaha waxaa la isku raacay inuu ahaado 40,000 oo shilinka Kenya ah xagga xoolaha markii loo dhigan 4 qaalmood. lambarka saddexaad wuxuu noqday ducada ee arooska waxaa laga dhigay 2 neef oo ari ah in lagu duceysto guriga la arko. kan afraad waxaa laga dhigay arooska gabdhaha dheeshood ciyaartooda inay ayaga kali dheeli karaan. waxaa shanay inuu u banaaneen qoobka ciyaar wax la yiraahdo iyo parties oo gabdhaha kali ay ciyaari karaan. kan kale waxaa la nahiyay oo diintaba nahiyay oo culimadana nahiyay oo islaamkaba uu nahiyay oo laga hor imaaday waxa la yiraahdo shaashaarka inayba ku jirin diinta islaamka. qodobka 9aad waxaa la isla gartay arooski aroosada marka la galbinayo diinta muxamadiyada in lagu galbiyo xoogaa muxaadara ana laga sameeyo meesha. ugaaska guud ee bulshada deegaanka Faafi Salebaan Axmed Shuuriye oo goobta ka hadlay ayaa dhammaanba dadka islaamka ku booriyay in guurka la fududeeyo isagoo sidoo kalena ka codsaday dadka deegaankan in la fuliyo qodobadii ku qornaa bayaankii maanta meeshan laga akhriyay. hada waxa weey hadii aan muslimiin nahay seven kan muxuu 7 fasaad iska yahay muslimiinta guud ahaan meel ay joogaan waxaan ku boorinaynaa oo aan ku dardaarminaynaa in guurka la fududeeyo si maxaan ku raahdaa muxuu ahaa diintaba nafaraysa maxaan ku raahdaa in muxuu ahaa guurka la dadejiyo oo maxaan ku raahdaa muxuu ahaa saxun aan loo dhaqmo in guurka la dadejiyo qarashada faraha badan iyo nidaamyadaas leh muxuu ahaa laga tanasulo in muxuu ahaa hawlaha aan soo bandhignay sida yihiin loogu dhaqmo. si kastaba ha ahaatee qodobadan laga soo saaray kharashaadka iyo habdhaqanka guurka xeryahan Dadaab ayaa haddii uu meel maro wuxuu fursad siinayaa dhalinyaro badan oo ku nool xeryahan iyo waliba deegaanadan hoostaga. Axmed Cabdullaahi Jaamac, Axmed Dheere, telefishinka caalamiga ah ee Kalsan, Dadaab.